بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبله waxa uu casuumaad u diray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir isaga oo ku casuumay inay ka soo qayb galaan shirka wadatashiga qaran ee dhameystirka doorashooyinka si waafaqsan heshiiskii 17 September kaas oo ra'iisul wasaaruhu uu mudeeyay 20ka bisha May oo maalin Khamiisa ra'iisul wasaaruhu waxa uu rajaynayaa in madaxdu ay ka ajiibi doonto isla markaana shirka laga soo wada qayb gali doono ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay inuu ka codsanayo in ay madaxdu maalinta ka horeysa Arbacada ama wixii ka horeeyay ay yimaadaan si shirku uu bilowdo waqtigii loo qorsheeyay dad badan baa laga yaabaa inay is yiraahdaan maxaa 20ka loogu dhigo hadda shirkii maaragtay si dhaqso loogu baaqi waayay waxaad ogtihiin in hadda aynu ku guda jirno 10kii u dambeeyay oo ay bilaabanayso 10kii u dambeeyay bisha Ramadaan oo runtii xilli aad muhiim u ah dadka Islaamka ah sidoo kale ciidiya imanaysa iyo wadci marka waxa la isla gartay in xiriir ama la tashiyo la sameeyay ra'iisul wasaaruhu madaxdaas in ay ku haboon tahay in laga dhigo 20ka waxaan rajaynaynaa shirkaas in dhammaan laga soo wada qayb gali doono ummadda Soomaaliyeedna maaragtay waxay ka filaysaa shirkaas insha Allah in uu noqdo shir horseeda kii heshiis lagu gaari lahaa doorashooyinka isla markaana dalka ay ka dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah aad iyo aad u mahadsantiin.